maxaa ka jira burburka kooxda BTS iyo inaanay gebi ahaanba u sii wada shaqayn doonin qaab koox ahaana hadalka Suga ee waxaan gaadhnay waqtigii aan u gudbi lahayn jabtarka labaad ee nolosheenna muxuu ka dhigan yahay taageerayaasha kooxda BTS Army maxay ahaayeen hadalladii cabatinka lahaa ee ka soo yeedhay team leaderka kooxda iyo ninka lagu magacaabo RM cadaadisyada uga imanaya dhanka militariga ma waxay gebi ahaanba ku kaliifan inay niyad jabiyaan toddobada wiil iyo fanaaniinta South Korea iyo kooxda BTS xilli hadallada niyad jabka ee ka soo yeedhay dibnihiisa ninka lehda RM ay u dhignaayeen sidan dhibaatada K-pop-ka iyo awoodda fanada jirta gebi ahaanba kuma siinaya waqti fiican ood ku qaangaadho waxyaalaha qaarna kuma ballan qaadayaan jiritaankaaga dhabta ah si aad u gaadho hadafyadaada ruuxiga ah balse uma niyad jabin doono taageerayaasheenna BTS Army. Hey, let's go! maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena maalinlaha mid ka mid codsiyada ugu su'aalaha badan dhanka asxaabteena oo ku saabsan kooxda BTS burburka laga sheegayo tiimkan arrimaha Jin iyo aaditaanka dhanka iyo militariga oo abuuray walaacaad badan iyo kooxdooda baaldega BTS Festa sanada 2022 ku sheegtay gebi ahaanba hadalla ka cadhaysiya taageerayaashooda Army waqti ballanqaadku muuqdo mid dhammaada intaas iyo xogo kale oo aad xiiso badan aan ogeyn ayaan kaga dabageyn doonaa muuqaalkan balse ka hor waxaan rabaa inaan idinka mahad celiyo sida quruxda badan aad ula falgashaan mar kasta muuqaaladeena idinkoo la garaynaya subscribe-ta ayaa ku soo biraya YouTube-keena Baldahab TV waxaan idin leeyahay waan idin ogahay midaasi mahadsan idin saaxiibayaal muddooyinkii u dambeeyay taageerayaasha xamaasadda badan ee kooxda BTS oo celcelis ahaan lagu qiyaasay ku dhowaad 100 milyan oo qof ayaa samaystay hashtagyada cadhada leh ee muujinaya in BTS ay la mid tahay shakhsiyaadka haysta biladaha daabka ee caalamka sida ciyaartoyda South Korea ee adduunka ka ciyaara oo qolyaha ku guulaystay Asian Games iyo Olombikada sidoo kale dadka caanka ee awoodda sare leh iyo fanaaniinta qadiimka ah kuwaas oo lagu ixtiraamo gebi ahaanba inaan loo dirin ciidanka haddaba taageerayaasha kooxda BTS ayaa aaminsan gebi ahaanba inay BTS haysato shuruudaha lagaga dhaafi karo gebi ahaanba in loo diro ciidanka sida caanimo ballaadhan oo ay ka mid yihiin one of the most popular teams in the world iyo tiimamka loogu aqoonsiga badan yahay adduunka sidoo kale ay haystaan biladaha daabka oo ay ka helaan aqoonsiyo xoogan adduunka sida Billboard 100 Hot oo ay ku guulaysteen kadib markii ay qaadeen ama duubeen heestooda Dynamite si lamida waxay leeyihiin waxa uu leeyahay tiimkani taageerayaal aad u badan oo muddo 2 sano iyo wax ka badanna waxaa laga yaabaa inay gebi ahaanba ku noqoto niyad jab kuna dhacdo disband tiimkana uu gebi ahaanba sidaasi ku burburo haddaba ma kula tahay taageerayaasha kooxdan iyo codsiyadooda iyo qalaabyada ay ka sameeyeen adduunka iyo mudaharaadyadoodu gebi ahaanba inay yihiin wax ka bedelaya in loo diro tiimkan ama lagu daro militariga muddo gaadhaysa ilaa 2 sano Okay. Alexa, thanks for calling. That's sweet. Thanks. Okay, buddy. dhammaanba codsiyada taageerayaasha iyo hadallada cadhada leh ay ugu doodayaan tiimkan kooxda BTS iyo sidoo kale kooxaha K-pop-ka ayaan waxba ka bedelin xeerka adag ee militariga ee u yaala dalkaasi South Korea oo ah ragga daadooda u dhaxaysa 18 ilaa 28 jir inay soo qaataan ku dhowaad 20 bilood oo militari ah sanad iyo badh ilaa 2 sano tan ay ku tilmaameen inay tahay waajibaad qaran haddaba sida wararku ay sheegayaan kooxda BTS ninka ugu daada weyn oo loo yaqaano Jin ayaa dhashay 4 December 1992 haddana daadiisu ay maraysaa 29 sano waxaana qasab ku ah gebi ahaanba intaanu gaadhin 30 sano inuu soo guto waajibaadka dalkiisa ee dhanka militariga balse waxaa la sugayaa in loo yeedho oo kaliya si uu u baxo waxaase la tilmaamayaa inaanu ku faraxsanayn si kasta oo ay u dhacda arrintaasi haddii uu diidana waxuu la kulmi doonaa ciqaabo ka waaweyn ama ka culus middan
dhowaan xidigaha BTS ayaa u dabaaldegay Festa BTS oo ah xaflad ay samaystaan sanad kasta oo ku aadan xilliga ay ku duubeen muuqaalkoodii u horreeyay heesta No More Dream 13 July sanadii 2013 maalmaha 9 ilaa 13 ee bishan Julayna waa maalmo ay si weyn u qadariyaan. haddaba fadhigan ayay ugu magac dareen doorkan Festa Dinner BTS oo ay ku qaateen si wada jir casho ballaaran oo ay dhammaanba 7 xubnood ee tiimkani ay si wada jir gabi ahaanba uga soo wada qayb galeen. haddaba markii shirkani u bilaabmay ayaa waxaa ka muuqday fifaal aan dadka ku farxin gabi ahaan oo muuqday mid aan qurux badnayn. hadalladan iyo ficilada ka soo yeedhaya tiimkan iyo kooxdan ayaa gabi ahaanba qaaran farxad gelin taageerayaasha kooxda kadib markay u hadleen qaab tilmaamaya inaanay sii ahaan doonin tiim iyo koox sii wada shaqaysa midna. tan ayaana shaki gelisay gabi ahaana abuurtay murugada iyo warka aan quruxda badnayn. intii ay ku dhex jiraan casho sharaftooda ay ugu magac dareen Festa Dinner BTS ayaa ninka lehda Jimin oo ka mid ah xubnaha kooxda BTS iyo 7 wiil yidhi waxaan dareemayaa hadda inay tahay waqtigii aan raaxaysan lahayn waayo gabi ahaanba anagu waxaan nahay qardaalay. erayadan iyo hadallada ka soo yeedhay Jimin ayaa waxaa loo arkayay inuu ka hadlayo kaliya Nasimo iyo inay qaadan doonaan toddobaadyo ay ku nasanayaan balse iyadoo uu abuuray welwel iyo gabi ahaanba naxdin hadal aanay ku farxin oo u ahaa dadka jecel wada jirka tiimkan iyo isku duubnidooda ayaa waxaa hadalkii bacirka ku sii shareeray ninka lehda Suga isagoo yidhi waa inaan joojinaa hadda kadib iyadoo lagu macneeyay weliba ereygan markii la turjumay hiatus oo marka shaqo la doonaya halkaasi gabi ahaanba inay ku dhammaato ama la gaadhay halkii lagu dhammayn lahaa wax kasta oo hore loo soo qabanayay. isagoo hadalkiisii dhexda uga jira Suga ayaa waxaa weliba ku sii daray waa inaan isweydiinaa maxaan u samaynaynaa muuqaaladan ama aanu qabsanaynaa xafladda Festa. iyaaf kala qaadayay ku ahayd gabi ahaanba dadkii jeclaa inay isku duubnaadaan tiimkan. waxaaba warka samada ku sii shareeray mar kale ninka lehda Adam oo ah hogaamiyaha ama team leaderka kooxdan BTS ayaa isaguna ku daray hadalka taageerada u muuqday isagoo yidhi waa run waa inaan ka fikirno waddada aan qaadayno hadda kadib. saddexdan hadal kadib markii ay israaceen yidhaahdeen xubnaha ugu cadcad kooxda BTS ayaa gabi ahaanba waxaa caddaatay in kooxda rabta wax ka bedel qaabkii hore ay u socotayna aanay ku qanacsanayn. gabi ahaanna rabin inay si wada jir u soo saaraan muuqaalo tan aan ahayn mid farxad gelinaysa dadka wada jirkooda xiiseeya tiimkan iyo isku duubnidooda. mar kale ayaa waxaa hadalka qaatay Aram isagoo yidhi waxaan xaqiiqsaday in kooxdu isbeddeshay waa run waa inaan aqbalaa isbeddelka aniga ahaan kooxdu waxay mid gacantayda ku jirta markii aan samaynay heesaha On iyo Dynamite oo soo baxay sanadii 2020 balse markaasi kadib markii aanu samaynay Butter iyo qobka ciyaarka ilaa markaasi kadib waxaan ahaa mid ay gabi ahaanba gacantiisa ka baxday kooxdu manaan garanayn tiimka iyo cidda aanu nahay iyo jihada aanu hayn midnaba. 이제 제 생각은 방탄소년단이 한 다이너마이트 전 온 다이너마이트까지는 haddaba intaasi kadib waxaa laga dheehday hadallada Aram inay jiraan cadaadisyo soo wajahay oo markii ay soo awoodaysteen tiimku gabi ahaana duubeen heesooda ugu qatarsan sida Butter, Dynamite iyo On waana intii ka dambeysay sanada 2021. haddaba intaasoo fikiroo la isu geeyey waxaa laga dheehday gabi ahaanba inay jiraan cadaadisyo iyo waxyaalaha aanay dul qaadan karin taasoo kalifaysay gabi ahaanba inay isdhiibaan ha noqoto cadaadis uga imanaya dhanka iyo militariga oo kullida qabo socodka kooxda amaba ha noqdaan caqabado kale uga imanaya meel kale oo aanay muujin iyagu. intaasoo quriya maaha waxaa qaatay hadalka ninka lehda J-Hope isagoo yidhi waxaanu arkaa isbeddelkaasi inuu yahay mid aan u baahannahay hadda waa inaan bilowna jabtarka ama tallaabada labaad ee nolosheenna inagoo muhiimay tahay qof kasta inuu yeesho xasuuso gaar ah iyo waxyaalo lagu xasuusan karo kelidii taasay ku taageerayaan faniskiisa iyo dadka jecel. waxaana loo fahmay warkaas J-Hope inuu leeyahay qof kasta ha duubta heesa gaar ah iyo albano shakhsi ah oo ka madax bannaan BTS iyo ka timahan qaabka ay u dhisan tahay kooxdu. wuxuuna durba ninka lehda J-Hope soo saaray album cusub oo la yidhaahdo Lollapalooza oo ay la wado fanaanada reer Amerika ee Becky G oo soo baxay durba hordhiciisu kaasoo la arkayay qaabka quruxda badan ee u raabgaraynayaan isaga iyo fanaanada reer Amerika ee Becky G.
waxaana la arkaya albankan gebi ahaanba inuu yahay mid qurux badan heesaha hordhacay soo baxayna waxay dadku aad ula dhaceen sida uu raabgarinaya ninka leehday Jacob ama uu qaadayo taasoo caddaynaysa haddiiba tiimka BTS uu burburo inaanu noqonaynin in halkaasi ku hadha heesihiisuna noqonayaan qaar kala hawada si aadana gebi ahaanba loo xiisayn doono. The tempter. Hito was a link to the second. The evil. walow dhammaadka sheekada uu ka soo galay ninka leehday Jungkook Cook uuna tilmaamay qaab qiirale isagoo u hadlaya gebi ahaana ka ooyay xubnihii iyo tiimkii fadhiyay meesha BTS markii uu yidhi ma ilaawi doono taageerayaasheena waa ballan waan soo muuqan doonaa anagoo ka awood badan intan annaga army ayaan wax ku nahay mana jirto sabab aanu ilaawi doono marna balse waa qasab inaan qaabkan wax ka bedelo si aan u nasano ugana degno culaysyadana haysta hadda middan oo tilmaamaysa inay jiraan carqalado haysta tiimka heer RM ku sii daray weliba hadalka kuna soo gabagabeeyey warka dhibaatada K-popka iyo awoodda faneeda jirta oo kuma siinaya waqti fiican aad ku qaangaadho waxyaalaha qaarna oo kuma ballan qaadayaan jiritaankaaga dhabta si aad u gaadho hadafyadaada ruuxiga balse waan soo laaban doonaa. shirkadda ama corporationka Hybe oo qayb ka ah meelaha laga tixraaco kooxdan BTS ayaa beeniyay kelmadaha haytaska ama tilmaamaya burburka iyo kala tagga tiimkan ay gebi ahaanba inaanay sii jiri doonin isagoo yidhi midani waa been iyo been abuur balse marnaba BTS kama baxaysa saaxadda iyo adduunka waanay jiri doonaan balse waxay u baahan yihiin tiimku inay nastaan waxaana jira albano cusub oo fooda idinku soo haya sanadda 2023 waxaana weliba ku sii daray hadalkiisa xubnuhu waxay u baahan yihiin inay istijaabiyaan ka xubin si ay soo ogaadaan talentigooda awoodooda mid faneed iyo mid shakhsi ahaaneed labadaba si la mid ah wararka ka soo baxaya dhanka iyo militariga iyo xeerarka K-popka u degan ayaa lagu tilmaamay kadib cabashadii badnayd ee tiimka BTS dartii in wax laga bedeli doono loona ogolaan doono haddii ay jeclaanayaan inay qabsadaan showyo ama bandhigyo kooban. So much. So, thank you. Thank you. Yep, no problem. Jojo's going to come up and we're going to do a couple more. welcome Jojo. waxaan ka baranaynaa haddii baad wax noqoto oo aad awood yeelato sida aad u leedahay taageero iyo cid ku jecel gebi ahaanba inaad u yeelan doonto dad negative ku ah waxqabadkaaga cadowna ku ah shaqadaada caqabaduhuna ay noqonayaan gebi ahaanba qaar ku soo wajaha marar badan waxa qudheed uga gudbi kartaana ay tahay adkaysi iyo gebi ahaanba aaminitaanad aaminsan tahay naftaada iyo shaqadaada labadaba intaas ayaanu ku saafmeerinaa muuqaalkeena maanta oon kaga hadlaynay BTS iyo arrimaha militariga si la mid ah waxaan ka soo hadli doonaa codsi kastoo aad leedihiin igu dhaafa qaybta hoose ee commentiga si aan uga soo diyaariyo muuqaal qurux badan oo kan oo kale ah ha ilaawin inaad like garayso videoga sidoo kale subscribe dhow ku soo bir YouTube-keena Baldahab TV sida aad u noqoto daawadaha koobaad ee kilibyadan soo gelino bartan oo ana kaaga mahad celinaya garab istaagiina iyo sidoo kale taageeradiina labadaba waxaan idin leeyahay mahadsanidin saaxiibayaal.